الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد وسورة البقرة آيات لبقل كنتنية الضباء تفسير كده قال الله تعالى إلهي بأوحي الله إلهي ولي الذين آمنوا dadkii isaga rumeeyay ayuu hiiliyahood iyo taageerahooda yahay yukhrijuhum min adh-dhulumaat gudcuriyaalku ka saaraa ila an-nuuri iftiinka iimaanku u saaraa walladina kafaruu kuwa gaaloobayna awliyaahum cidda gacalka iyo xigtada u ahay ad-daaquut wa shaytaan iyo sanam يخرجهم وحي كسارة يخرجونهم وحي كسارة يعني من النور افتين كإيمانك إلى الظلمات قال لما وسارة أولئك أصحاب النار لبدا قلب النار تلا ساحيبه رو هم فيها خالدون ويكواريا ألم ترى ميانا ذركينا مؤغين قفيا ولا لها الضياء إلى الذي قال كي حاج إبراهيم في ربي نبي إبراهيم بكالد ضوضي ربي جيس أولي مبتش ربا أن آتاه الله إنه إلهي سيئي درادات بلدو ديا الملك مدحتنمو إلهي سيئي يمالي أود إذ وقت حس قال إبراهيم نبي إبراهيم باوحو يلي ربي إلهي والذي إلهي ويحيي ويميت وحنا لا يوحنا دله قال كاسي وحو يلي أنا أحيي وأميت أنا قابا وحنا لا يوحد له قال إبراهيم باوحو يلي فإن الله إلهي يأتي بالشمس إلهي قرح ذا ككينا من المشرق حقا يكسو بحضه فأتي بها أضوء حد ككينتا من المغرب حقا يكدعضه فبهت الذي كيبا للدوخية أما وريري كفر قال وبي والله لا يهدي إلهي متشهي يوم توسيه القوم الظالمين قل يها ظلم السماء إلهي مهنونيه آياتكو ولي halka hore ku sii xiran yihiino waxa ilaahay xusaya dadka adduunyadan ku nooli waa laba qolob wax saddexeeya ma jiro awliyaa Allah wa awliyaa daaquut wa shaytaan laba awliyaa jiro oo cid waa awliyada ilaahay leeyahay qaarkood ibaadur rahmaan qaarna waa awliyada shaytaan marka iska ilaali awliyada daaquutka iyo shaytaanka inaad ku biirto waxaad ku ururtaa oo aad ku adkaysataa inaad awliyada ilaahay ka mid noqoto awliyada ilaahay astaantooduna waxa weeye iimaan dhaba iyo alla ka cabsi ala inna awliyaa allah la khawfun alayhim wala hum yahzanun alladhina aamanu wa kanu yattaqun wa iimaan wanaagsan oo qanjaa joogo runa iyo alla ka cabsi wa aqeeda iyo amal fiican أستاما إلهي وشاقي النتائج علامة ينتيجوين ولاية إلهي وحويين وأضونك إلهي وحبا أضونك وقام باهنه إلهي بسور دويني أو إسكرب تاقي أو إهيليني أو توسيني أو إلاليني حيابها إلهي ولاية دي سلقا معاش إن هذا إلهي ولو نقطه وحوقه الرأيه inuu ka saarayo gudcuriyaalka oo iftiinka uu ku saarayo gudcuriyaalku maxay quraanku hadiyo jeer markuu wax inoo sheegayo wuxuu wax inoogu tilmaamaa sidii waxaynu arkayno kale gaalnimadii oo noocyo badan waxay la mid tahay gudcurka noocyadiisa kala duwan iftiinka quruxda badan aad aragtayna waxa la mid ah iimaanki oo mid kaliya ah sida daraadeed ba quraanku uu jamciyaa markuu ka hadlayo gaalnimada dhulumaad iimaan kala mid quru ku sheega waayo gaalnimadu waa noocyo aad u fara badan laakiin islaamnimadii iimaanku waa mid waxa ugu weyn ee ilaahay uu ku siiyana waa diin iyo iimaan iyo inuu gudcurka gaalnimada ka saaro oo iimaanka uu siiyo kuwa gaaloobayna waa sida cagsigeedo gaal iyo wixii uu wataa wuxuu ku dagaalamayaa oo ku dirirayaa inuu ilaahay diintiisa iftiinka dadka ka saaro weydaariyo ولا يزالون يقاتلونكم
حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ولقود دين ما ينبولاي إن دقال كايد كوضان دين تأيد كلا دقال ما يهدا يذكران قرآن كسر اسكو مرخات كعي مركا دقال كي كنا يهودي هو كنا نصراني هو كنا بوذيس هو كنا دبعاب هو اسكو وحاصل أموال ظلمات كذا كمدي إذا مركا نتيجة دينا وحي نقطي هل كي إلهي وهل كهرم مؤمنين تيري فقد استمسك بالعروة الوثقى كان وحر أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون نار تيجليا وانا كواريا نتيجة كفر قال لقد حلا واتا نتيجة إيمان قال لقد حلا واتا هراي نسوا أرجني لبدا سبع الدنيا ده يالله ده قفكين الدورش إلهي سي اختيار ما قصبين marka gaalnimaha doorana iibaan doorawi si aad wilaayada ilaahay iyo weheshigiisa u hesho si aad adduun iyo aakhiraba iftiin u hesho si aad janno iyo macaankeeda u hesho waxba dadka looma reebin ilaahay waxay ugu marmarsoodaan ay yidhaahdaan wax nama soo gaarin shaygaas ma jiro oo ma yaalo si caamay marka aayaduhu soo hadlayeen caqiida ahaan laakiin hadda waxa lagu sheegaya tusaalayaashii tusaalihii ayaa lagu sheegayaa awliyada ilaahay waxa calanka u sida hor kacay oo tusaalaha hadda u taagan nabi ibraahim khaliilur rahmaan awliyaa taaquut iyagana waxa calanka u sida midkii la murba ee la dooday nabi ibraahim ee culamaa tafsiir magaciisa ay ku sheegeen namruud ibn kancaan magaciisa lagu sheegay kaasa mujrimiintana calanka u haya laakiin intana adduunyadu joogto waa labada qolo qolo ilaahay xaqiisa dadka ugu yeedhaya iyo qolo daaquudka ugu yeedhaya oo midina halkii nabi ibraahim ku taagay oo awliyada ilaahay iyo muuminiinta qolana halkii namruud bay taagayna waa inkaar qabayaasha inta yare namruud la warwareegay ayuu bay qaarna wari la soo taagayn oo iyagii ibliis ay ku yeedhinayaan ay ku hadlayaan إن كان نمرود لا يراده أما قال كاسي قرآن كم مجلس أنا عيمين وحلو عيمي ويسي أن لو مودين قصدنا إن كاكو جونت فعل كان عيد كستوصة ما يسه قال هذا هدا إن لا تشوكتوا هذا يعني وين نمرود يوم مركا أوصافتي تلبامة لقادنا يا سمية إن كان وحول النبي كان كلا دودا يا وكلا ما مركا هربا إلى هاي ما تشره أنا قاعد تشره وأنت فرعون رنج أنا ربكم الأعلى سدين تنويري وده مركي النبي موسى رب العالمين بان صادر فرعون محول وما رب العالمين ورب العالمين كان تيجي يسامحوها ما شانوا بكر ربي هاي رب السماوات والارض وما بينهما عرق يقول انت كل حيث اله اسكلوي ميورن كرانا لدي مركب فرعون ادي تاسي دحمرتي النبي موسى النبي ابراهيم يكناك مركي ويري انيغا الهيه ayaa nabi ibraahim waxa uu yiri horta sababtu wala doodayna de waa lagu sheego ilaahay baa milkiisi rabbi alladhi yuhyi wa yumiit ilaahay isaga wax dila waxna nooleeya tilmaantiisu waa taa deysna laba qof buu midna dilay midna daayay laba qof oo ilaahay nooleystay oo nafti ilaahay ku jirto oo namruud waxba galinin ayuu mid soo qabto uu dilay kana uu daayay وفلسفة قلعان موقت مركا وحول ده كنا دلي كنا داي مركا كنا أنا دلي كن أن دايينا أنا نولي لو أن دلي كراي مكابه هل كان مركا أهرنتي تاجنتي ومغالطة وحلا مغالطة تذكر قار كود بكود بالرقي كرا وأنت وكهر وسن كرا وأوران كرا دوار وارنتي كنا ودلي كراي بقى ده سو كان داي ونولي قاركود بعضك عقلك كابن لفاستخف قومه فأضاعوه لهاي فرعون قلديس عقلك كطوف صداي وكلا وريتشي موجدي بوجب بحيرنا عكلوا وريجا يوحد فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب هل كاسات قشي قد علات قشي مياه هل كاسات دكتي قرح ذا النوم وقطع حاجة سوي لهاي كان هاي كسب بحذا يركل وريتش حاجة كان عدون كان بهتي baa ku dhacay marka uu wareeray wuxuu raahdaa ma jiro wuxuu ku doodaana ma jiro ilaahayna qof dulmi falaa u ila bixin maayo xujo ku heli maayo marka la eego nataa'ijka ama aan ilaahna cibarkiyo faa'iidooyinka waxa halka aynu ka aragnay dad waxa ugu kibir badan
kuwii ilaahay dhargiyey awoodda iyo aqoon iyo adduun daduu ku imtixaanay u dhiibay kuwaasaa ugu kibir badanba kalaa ina alinsaana la yadqa an ra'aahu istaghnaa buu ilaahay wallee gaal wuu kibray markuu arkay qaninimada ilaahay u siiyey halkanna ilaahay wuxuu yidhi an aataahu allaahu lmulk madaxtinimadu ilaahay u siiyey buu ku kibray bal maanta ee gaalada waxay dadka ku addoonsanayaan inay ku dulmiyayaan waa maxay waa adduunku ilaahay siiyey iyo aqoonta loo furay ila callama alinsaana maa lam yaclam soo ilaahay ma odhan yaclamuuna daahira min alxayaati dunya ilaahay baa fura iyo awoodda hub ee loo dhiibay waaba inta an aataahu allahu lmulk marka waynaan dareemina dadba kii dhargaa u daran bay odhan jireen kacanadii hore ka ilaahay u dhargiyey ayuunbaaba ugu daranba oo ma sabri karo awooddaasuu ku kibraya dhan walba u ridaya awooddii iyo xukunkii iyo xooluhu ilaahay siiye kibir bay dhaleen waa kuwa ilaahay halaagayo addoonka marka ilaahay uu u nicmeeyo ee dulmi badan uu iska dabageeyo qofku ee daalimnimadu sifa ay u noqoto dariiqu ku hanuunaba ma helaba dulmigu markuu sii batay iyo digtaytirnimada iyo kibirku qofka sifa u noqonaysaa daalim ayuu la baxayaa cuquubada weyne ku dhacaysaa waxa weeye hanuunkii ilaahay in laga xirmaaniyaba awliyada ilaahay isagaa garab taaganoo wuxuu u laqimaa mar walba waxay ku guulaysanayaan innaa lanansuru rusulanaa waaladiina aamanuu fi lxayaati dunya wayowma yaquumu lashhaad ilaahay nasrigiisa awliyadiisu diyaaru leeyihi bal siduu nebi ibraahim ilaahay ugu heliye su-aashii hore su-aasha jawaabta labaada raacdayba wuu xidhxidhayba miiska doodoo lagaaga adkaadaabana ka dagaalka ka daran in miiskaa dooda lagaaga adkaadoo lagugu jebiyo way ka darantay ka dagaalka sidaa daraaddeed baa ilaahay u hiiliyey nebiyullaahi ibraahim oo uu ku hagay xaqi ayaddu waxaynu ka faa'idaysanaynaa qisada wujuubu lmunaadara fii ihbaati alcaqiidati asaxiixati saliima inay doodu daruuri tahay waajib tahay ehelkeedu inay doodaan si caqiidada saxdaa dadka loogu iftiimiyo waliba casrigan aynu joogno waa casri dadkii oo dhammi meel keliya isugu wada yimid oo la isku soo dhowaaday laga yaabo intaasoo qof in caqiidadooda laga fasaadin karo marka in qaybaha jihaadka ka mid noqotay in dadka loo bayaamiyo xaqa iyo caqiidada saxda ah waxyaabaha ay qisadu inoo faa'iideynaysa waxaa ka mid ah inaad la timaado usluubka dooda hababka doodu ku hirgasho ayaa qisada aynu ka faa'iidaysanaynaayo ah marka qof doodaysaan haddii aad aragto waxaa hore ka doodayseen inuu ka faa'iidaysan karo waxaa habboon inaad ka dulguurto oo mid aan hadalba gelayn aad keento waayo hadafku ma aha midhkan la isku hayo ee hadafku waxa weeyaan in xaqa la caddeeyo noloshu caynkanay tahay iyo caynkanay tahay iyo caynkanay tahay in laga doodo arrintu ma ahayna waa in jiritaanka ilaahay subxaana wa tacaala la caddeeyaabahe jiritaankii ilaahay si loo caddeeyo taa hore maadaamuu hadal ka keenay iyo muqaaladda iyo warwareeg dadka qaarkoodna ku harowsan karo waxa uu wareegay mid bila hadalaba taasina markaa waxay keenaysaa an tubdila xujata alkhasm qofka kula doodaya doodiisu inay soo afjaranto si kale haddii loo dhigo inaad difaacun dooda ku jirto waxaa ka quman inaad weerar gasho oo taa hore markii uu ishkaal geliyey ama hadal hadduu la sii wadi lahaa nooc difaaca buu geli lahaa laakiin weerar buu ku dhuftay kii hore ku culusoo barakiciyey asaaliibta dooday ka midta lama odhanayo qisada markaa saa loo sii eego nebi ibraahim waxa uu uga guuray masaladii hore ee noloshiiyo geeridee laga doodayey inuu ka caajisay jawaabteeda lama odhanayo laakiin hadafka caamkaa buu tixgeliyo ahaa jiritaanka ilaahay subxaana wa tacaala iyo wixii daliil u ah waxyaabahaasi waxyaabaha qisada laga qaadanayo weeyo iyo asaaliibta ama hababkay dacwadda ummadaha ku gaadhsiin jireen rususha ilaahay inay ka mid ahay dacwadda iyo dooda iyo dagaalka saddexda way isdaba socdaan waa inagaa kusoo maray ku arkaynay suuratu ama ku arkaynay suuratu annaxli aakhirkeeda
udcu ilaa sabiili rabbika bilxikmati walmawcidati alxasana waanadu saa ay u socoto wajaadilhum bilatii hiya axsan ayaa daba taala haddana dee waxaa daba yaala haddii gacani timaado wain caaqabtum facaaqibuu bimili maa cuqibtum bihi jihaadkiiyo cadaaladii wata waxaa kaloo markaa qisadu ay u horeysaa ama aan idhaahna qisadii labaad tahay afarta qiso ee caddaynaya soo noolaynta aakhiro oo in badan gaaladu diidaan gaal wuxuuna ku adag gaal waa aakhira diida aakhiraas la soo baxayaabaa ku adag oo halkan unba aaminsan in lagu ururayo halkan lagu waarayo marka qisadii baqarada ama saca waynu soo marnay ilaahay ninka soo nooleeyey waxaa kaloo aynu arkaynaa halkanna ilaahay waa kaga warramay iyo labada qisee dambeba markaa sidaa ilaahay waxyaabo badan uu soo nooleeyo khalqigiisa ka mid ah ama u soo nooleeyo ayuunba aakhirana dadka u soo noolayn doona geeridan iyo noloshan ka dambaysay inu ifkiiba ku arkaynaa wuxuunay daliil u yihiin dadku intay dhintaan inay aakhiro soo bixi doonaan wax lala yaabo maaha ilaaha awooddan leh ee imikaba dadka dilee soo nooleeya aakhirana saasunbuu soo noolayn doonaa waa masale caqiidoodee arkaanta iimaanka ayay ka mid ahayd inaynu rumayno alyowm alaakhir iyo soo bixidiisa wallahu subxaana wa tacala aclam